qoysaska ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxa ay ku tiirsan tahay wax soo saarka dhanka nolosha mooto bajaaj iyadoona dhalinyaro fara badan ay u noqotay shaqo abuur wadooyinka waaweyn waxa ku arkaysaa mootooyinka nooca loo yaqaano bajaaj waxaana ku shaqeysta mootooyinkaasi dhalinyaro fara badan isla markaana ay nolosha qoysaskooda ku maareeya adliis $10 $15 20 wixii markaas oo ilaahay ku sii caadi waa ku qanacsan tahay laakiin 10 macquul ah 20 marka oo caadiga ma sha Allah suuq fiican yahay waay mar soddon waa la shaqeeyaa maalmaha jumcada oo kale $10 $15 laakiin normaalkooda waa macquulka waxaa jiro lacag loo dhigo bajaajta $10 qoyska inta badan bajaajleyda waxaa la sheegay inay u dhigaan ay biil ahaan ay ka dhigtaan marka adiga intaas ma maareysaa in qoyskii aad lacagtooda aad siiso lacagtina meel aad u dhigto bajaajta bari ka maalin haday halawada ama si kale wax kuugu soo baxaan aad ku xaliso dabcan waa intaba waa laga xali karaa mootada waxa waaye qaar waxay ku wadaan kireey ku wadaan $10 dhiibaan macdaalika iyagana biil ay ka sii rabaan mogtahay marka adiga 20 macquul waa la shaqeyn karaa 20 alxamdulillah waxa waaye caadi waa doo suuqa kuugu xumeen oo magaalka xirxirneen oo kale magaalka furiyahay ma sha Allah suuqeeda fiican alxamdulillah magacaygu ku bilaw waa Usmaan Cabdullaahi magac dheer Mastar Xalane hadaa u guday karo barnaamijka bajaajka iyo bajaajka hadda ma dhawaa bilaabay alxamdulillah maalintii adiga markay uu yar tahay maanta wax ma shaqeyn doo waxaan ka shaqeynay 10kaaga mar waa jirtaa 20 ka shaqeey jirtay maalmihii iidoo kale 60 ka waa xareeyay 50 ka waa xareeyay suu ilaahay wax ku sii waa laakiin ma wadooyinka markay saameyn nugu leeyihiin wadooyinka markay xirayeen saameyn nugu leeyihiin sababta wadooyinka gees walba laga xiraa ma socon karno maalmay wadooyinka xirayeen ma shaqeyn 90% dhanka kale dhalinyaradan ayaa kaga digay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda qorsheysanaysa tahriibka in ay ka baaqsadaan khatarta naftooda ay gelinayaan iyagoona ugu baaqay in ay ka shaqeystaan dalkooda hooyo dhalinyaradaasi kasto $100 amaanta heshid sanduuqadiina saddex ku furtay bari waxay ku dhalee inta wadanka dhoofileed dulshay ayleed waa maqashay tahriibiyaasha badda waa lagu dhintaa dad badan ku baaba'ay oo ilaahay intii lacag intaas oo $100 laga bixiyay meesha rabeen gaarin cidina lacagta ay ka baxday su'aalaha haduu lacagtaas maanta uu ku qaadan lahaa bajaaj ama uu dukaan yanis ku furan lahaa wallahi waxa uu bilaabay inuu meeshan wax ka tiri lahaa wallahi dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhalinyaro oo walaalaheena dhalinyarada Soomaaliyeed waaye aad ugu xumahay wallahi in ay wadanka ka tagaan oo wadamo caalamka ay tagaan wadamada qaarkood oo macnaha Afrika wadamo ka mid ah Yurub ilaa Liibiya la sii maraa ilaa dhibaatooyin Sahara la sii maraa wallahi arin aad u dhib badan waay markii aad meesha aad tagtana waqtigaagii qaaliga ahayn ka dhumo adiga waxba aan dadheenin ceed yar qaadato waxa kaaga wanaagsan oo kaaga fiican ina wadankaaga iska joogtid oo macnaha wadankaaga wuxuu Ilaahay kugu qoro ku sugtid mooto bajaajka ayaa qoysas badan loogu shaqeeyaa iyadoona midaasi dhalinyaro fara badan ay u noqotay fursad shaqo